waxa maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah looga daahfuray xarun caafimaad oo cusub oo nooceeda oo kale hore aan dalka uga jirin oo lagu magacaabo Fatin Mid Hair Transplantation Center. waana xarun caafimaad oo loogu talagalay isla markaana gaar looga dhigay beerista timaha aadamaha sida timaha madaxa, gadhka, sunnayaasha iyo wixii kale markaasi ku lamaan. sidoo kalena waxay xaruntani leedahay qayb lagu baabi'iyo xaaraha iyo finanka wejiga ka soo baxa, waxayna xaruntani ku damaanad qaadaysaa in timihii ka daatay ay dib kugu soo celinayaan iyagoo markaasi si daacadnimo kugu shaqaynaya. xaruntan Fatin Mid Hair waxayna xarunteeda ugu weyna ay ku taallaa dalka Turkiga. Somaliland ayaa nasiib u heshay in xaruntii koobaad ee ugu horeysay ee markaasi laga furo Afrika in maanta si rasmi ah looga daahfuro Somaliland, waxayna Somaliland noqotay dalkii ugu horeeyay ee laga furo xaruntan caafimaad ee cusub ee markaasi lagu beerayo timaha. haddaba xaruntan caafimaad ayaa waxaa laga furay xaafadda Maslaha ee magaalada Hargeysa, waana xarun caafimaad oo ay kugu diyaarsan yihiin qalab casri ah iyo khabiiro ajaanib ah oo ku takhasusay beerista timaha iyo dayactirka timaha. waxaana xursid mudan inuu ku sugan yahay aas-aasaha xaruntan oo lagu magacaabo Maxamed Axmed, waxayna noqonaysaa xaruntani mid lagaga raysto tima beeristii loo tegi jiray dalalka caalamka. waxaana lagu talagalay xaruntan caafimaad inay yimaadaan kumanaanka dhalinyaro ee asiibtay bidaartu ee markaasi ay lumisay qayb ka mida quruxdii ay lahaayeen. sidoo kalena waxay xaruntani daweyn kahortaga ay siinaysaa dadka ay timuhu ka daadanayaan iyo dadka ay ku soo socoto bidaartu. intii aanu ku sugnayn goobta waxaan goobta aan ku arkaynay dad ay timo u beerayaan, waxayna halkaasi ku soo bandhigeen qaabka ay timaha u beeraan. haddaba munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka xaruntan waxa ugu horrayn halkaasi ka hadlay Ismaaciil Khayre Haybe, agaasimaha guud ee Geeska Afrika ee xaruntan caafimaad ee Fatin Mid Hair, wuxuuna ka waramay ujeedka ay u fureen. anigoo ah Ismaaciil Axmed Haybe isla markaana ah agaasimaha Fatin Mid Hargeysa Center, waxaan doonayaa maanta inaan idin siiyo report ama interview ku saabsan xaruntan maanta laga asaasay Hargeysa oo magaceeda la yiraahdo Fatin Mid Hargeysa Center. soo ogsoontiin Fatin Mid company-ga clinic waxa la yiraahdaa wuxuu ku yaala wadanka Turkiga, waana clinic ugu weyn wadanka Turkiga. wuxuu xaruntiisii Afrika oo dhan uu ka furtay magaalada Hargeysa. clinic wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan oo xagga caafimaadka ah. saas darteed adeegyada uu bixiyo waxa kamid ah ugu weyn beerista timaha, beerista garka, suuniyaha, Allahumma salli ala Muhammad, shaarubaha. clinic wuxuu bixiyaa wax kastoo ku saabsan xagga qurxinta. sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Mubaaraga oo ka mid ah aas-aasayaashii xaruntan, wuxuuna ka waramay qaabka ay timaha u beerayaan. timahaagii tegay wax soo celinayo kareema ama shaamboo ama saliidoo jirta hota yarata ma jirto. waxa qura ee lagu soo celin karaa waa in loo sameeyo implantation. timihii in timahaaga qayb ka mid ah la soo qaado kadibna implantation lagu sameeyo, kadibna halka u baahan lagu beero. implantation waxa weeye macnaahan waxa weeye waa beeris weeye in wax meel yaalay halkii hore timu yaaleen inta tima qayb waxa maqasheen waxyaabaha loo yaqaano in muxuu kaliyo kale lagu sameeyo muxuu qofka loo bedeli karo. marka timuhu waxa weeye waxyaabaha ugu simbalsan ee la sameyn karo implantation in tinta xagga dambe ku jirta inta la soo qaado iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah halkii u baahnayd lagu beero. marka ugu dambayn waxaa halkaasi ka hadlay Fehli Kokar oo ah agaasima ku-xigeenka guud ee xaruntan Fatin Mid Hair ee fadhigeedu yahay dalka Turkiga, tusaalooyin ka bixiyey qaabka ay timaha u beerayaan iyo dadka loogu talagalay in markaasi timaha loo beerayo. haddaan nahay clinic Fatin Mid waxaanu ka howlgalnaa wadamo badan, wadamadaas oo shuraaka nahay oo ku sheergalno magaca Fatin Mid annagoo adeegga u baahan yihiin u qabano sida tima beerista kale sida wadanka Faransiiska, Isbaanishka, Kosovo iyo Ciraaq oo kale. maantuna waxaanu hirgelinaynaa xarunta anaga Geeska Afrika oo ka sameeyay magaalada Hargeysa. waxaan rajaynaynaa bukaano badan oo Afrika ku nool inay ku soo hirdaan magaalada Hargeysa, noqotana adeegooda u badan in lagu qabto. Cabdi Wali Yusuf Umar, Bulsha TV, magaalada